السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي الملك عالم كانت كجوجتان بس كسو نقد وناكسن waxaan muuqaalkan idin kula wadaagi doonaa toddoba nooc ama toddoba dabeecadood oo dumarku ay leeyihiin toddobadan dabeecadood inta badan waa waxa keena marka muddo dheer aad soo wada socotaan in markaad isguursataan ka bacdi uu isfahan waa ka dhaco inta badanna marka laga baxo toddobabaxa marka laga dhamaado bil iyo laba la joogo ayaa labada qof waxa ku bilowday wax la yiraahdo isfahan waagan marka waxyaabo waxa jira dabeecada ama dhaqan qofku uu leeyahay marka hore oo aad wada socotaana jira hase yeeshee marka aad guri wada gashaan aad si fiican u aragtid laakiin marka hore inta badan kuma muuqdaan gabarba maalin dhow kaftankuna waa furaya dad walaalaayeen nahay gabarba maalin dhow waxay ugu tiri ayugo sibad ayaantan dumarku u saaran tahay mad naga dhamaatid waxaan rabaa inay raado Instagram-kayga haddaad arki lahayd waad yaabi lahayd waxa fariimo ku jira ama dad maaragtay soo weydiinaya talo gaar ahaanna rag soo weydiinaya talo qaarkood si gooniya waan ula taliyaa laakiin inta badan markaan su'aaluhu inay soo noqnoqdeen arkay waxay u kaliftay markaa inaan mowduuc ka diyaariyo midda kale jirtaa waxay tahay on rabo inaan videogan intaan qodobadan u gelin inaan iraahdo haddii maanta aad xaas leedahay videogan kuma khuseeyo haddii maanta aad reer leedahay video anigu aan leeyahay qiyaamo la iima soo taagayo ilaahay iyo inta i daawanaysaana markhaanti bay ka tahay in aan video anigu aan halkan idinkula wadaagay u isticmaashid xaaskaaga ama aad u isticmaashid odagaaga ugumaan talagelin videoyadeedu haddaad u fiirsataan boqolkiiba 99.9 waxa ay khuseeyaan waa laba qof oo wada socota haddiibana ay dhacdo lacallaba aan soo qaado laba qof oo isqabta marna anugu kama hadlo labada qof inay kala tagaan inay isfuraan inay kala faaruqaan maya taasu waa diinteenna aasaaskeedii in aan halkaa anugu galo oon reer dumiyo oo aan dad isku diro ujeedadeedu marna maaha waxaana walaalkay walaashay i dhegaysanaysa ilaahay hortiisa haddaynu isla nimaano dhacaysa in aan kugu dafiro waxa aad laga yaabo inaad reerkaaga ku dumisid ama gurigaaga ama noloshaadii wixii la halmaala haddaba video aan leeyahay fadlan ha u isticmaalin inaad gurigaaga ku dumisid caqligaaga isticmaal fakar fas'aluu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuun la tashu culimada ehelada arintaada si hoose u xalli laakiin video aad meel ka soo maqashay ha u isticmaalin waxay khusaysaa labada qof ee wada socota haddaba dabeecadda koobaad ama gabadhan dabeecaddeeda waxay tahay waa gabar inta badan isqurxin ku mashquulsan iyadu maanta dhan waa maray indhaha toosinayso maray indha kuul hagaajinayso maray cidiyaha samaynayso maray mara qurux badan isku fiirinayso ujeedadeedu marka maxay tahay ma waxaan ka soo horjeedaa gabadha inay isqurxiso maya ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaaba ku tilmaamay dumarku in ay quruxda jecel yihiin inayba quruxda sidoodaba qurux lagu koriyay saadarteed gabadha tani waxay kaga duwan tahay waxay isu diyaarinaysaa waa ama TikTok inay duubto ama social media inay dhex gasho ama Facebook ha noqoto aaladaha kala gedisan social media gabadha tan dhibaatadeedu waxay ka timaadaa markaad isguursataan inay inta isqurxiso ay sawiradeeda social media sida u dhex qubto dabcan marka hore waxa laga yaabaa inaad isleedahay gabadha tani sida caadiga ah marka la arko gabadhu malaha waxay rabtaa wiil bay raadinaysaa waa calaf doon sida Soomaali badan ay tiraado markan qiil way leedahay laakiin markaad guursatay ka bacdi dhibaatadu waxay ka imaanaysaa markaad aragtid intan nin oo comment ka bixinaysa fariimo private u soo diraya way rag badan oo waxa jiraan isku xishoon oo kala jeclayn gabadha hadii la qabay hadii kaleba aan iyagu dan u gelin tani marka waxay keentaa in reerku is khilaafo reerkaana sabab ay u noqoto in social media uu ku dumo waayo waxa dhacaysa marka qaarkood idinkoo cunto isla cunay isla sheekaysanaya meel wada fadhiya ama laga yaabo xaajada isu guursateen idinkoo gudanaya ayaa cabdi dheere meel uu ka yimid aan la aqoon baa wax iska soo wacaya messengerka way rag badan oo waxa jira aan aqli lahayn intay faaruq ka yihiin gabar bu social media ku arkay uu iska wici ma yaqaano ma la qabaa ma reer bay leedahay macnaha aqliga iyo fakarkaas rag badan oo ku jirin baa jira tani waxay keentaa marka gurigaas inuu inta badan dumo midda labaad waxay tahay gabdhahan igana raali noqdo waxaan u bixiyay qaarkood magacyo waxa la yiraahdaa dacwad badan dacwadeedu ma dhamaato hal maalin baa laga yaabaa in wuxuun ay ka filaysay ama ay ka rabtay inaad u sameyn weydo markaas waxay ku leedahay maalin walba ima samaysid mar walba aan ka codsado sidan baa tahay ma hadda ka hor saad igu samaysay ma xasuusataa inta badan gabadhan dacwadeedu ma dhamaato hal mar oo wax ka dhacaan baa waxa laga yaabaa inaad isnacdid la sheekaysigeeda xataa mararka qaarkood xataa waxa laga yaabaa inaad sheeko isku keentaan oo wuxuun ka sheekaynaysaan guud ahaaneed oo marka ay soo dhexgeliso ku tirada hey waa adoo kale ninkaas u tusaale ku siinaysaa oo ah maalintii hadda ka hor sida aad yeeshay ma xasuusataa marka dacwadeedu ma dhamaato mushkiladeedu waxay tahay markaad guri wada gashaan dabeecadda tan hadda marka gabadha tan la socotid oo isjeceshihiin oo jacayl uu ku riixayo ku haya gabadhina aydan is arkin
inta badan waad u samri kartaa, waad u dulqaadan kartaa, laakiin markaad berri guri wada gashaan dhuuntan kama degayso. waayo jadwalkani waa isbedelaya, dareenkani waa isbedelaya, adigu sidii hore ma ahaan doontid. tana waxay keentaa marka labadii qof inay iska hor yimaadaan. hadda inta aad la socotid si fiican uga fiirso oo gabadha tan haddii aad ka wada heshiin kartaan, xallin kartaan, ugana digi karto oran karto walaalay waxa kani waa idhibayaan, ahlan wa sahlan. haddii kale soo maahan maalintaad isguursataan qasab waad iska hor imaanaysaan waanaad isku nici doontaan. gabadha saddexaad waxaa la yidhaahdaa degan, kaama fuqayso. shaqada intaad ku jirtay haddii fursad xataa ay u helayso waxay jeceshahay maanta dhan inay telefoon ku jirto. mararka qaarkood baa laga yaabaa social media statuska inaad aragtay gabar soo saaraysa wiil inay la sheekaysanaysay 9 saacadood. subxaan allahi alcadiim, 9 saacadood maxaa noloshaada khasaarada noocaasa geliyey inaad qof telefoon ugu jirtid ama qof caawa dhan inaad u sheekaysid. subxaanak ya cadiim. wallahi haddaad fahmi lahaydeen qiimaha waqtigu uu leeyahay in aydan telefoon intaa ku lumisan. dad fara badan jaamiciyiin bayba noqon lahaayeen sanada gudahood intaasoo saacadood hadday waxbarasho gelin lahaayeen, intaasoo saacadood hadday diintooda gelin lahaayeen, intaasoo saacadood allaha abuurtay hadday baran lahaayeen. subxaanak, kitaabkii ilaahay baa xataa tafsiirkiisa aayad aadan dul fadhiisan karin 20 daqiiqo, laakiin 9 saacadood baad qof u sheekaynaysaa. subxaan allah. gabadha tan marka inta badan cadaadisku meeshuu kaaga imaan doonaa waa inta badan adoo saaxiibadaa la sheekaysanaya ama hooyadaa la jooga ama dad qaraabadaada la jooga ama qof walaalkaaya si fiican raba inaad ula sheekaysto la fadhidid bay waxay telefoonka rabtaa inay mararka qaarkood ku jirto. waxay ka baqayso, waxa iyada qalbigeeda ka guuxaya lama garanayo. gabdha noocan dabeecad noocaana leh baa jira oo maanta dhan raba inay telefoonka kuugu taagnaadaan. haddiiba shaqo aad ka soo baxdid telefoonka saa shaqada uga soo baxday inaad qubaysanaysid inaad tukanaysid maana waa inaad telefoon ku jirto. tani waa cadaab marka, waa ciriiri. waayo adigu shaqo iyo guriga inaad timaado sariirta isdhigto telefoon ku jirtid noloshaadu maaha, way ka ballaaran tahay, wayna ka weyntahay. inta badan marka waxaad iskaga hor imaanaysaan berri markaad isguursataan. waayo hadda waxaad is leedahay maadaama ay ku jeceshahay xiriir idinka dhexeeya u yara kaadi. berri markaad isguursataan waa ka hor imaanaysaa marka. waxaad u malaynaysaa marka dambe sheekadu isu rogaysaa oo iguma kalsoonid miya oo maxay tahay waxaan oo telefoon maanta dhan waa 15 goor 16 goor xataa hal mar hadad ka qaban weydi kuma ekaanayso. maanta dhan way ku soo wacaysaa ilaa marka dambe aad carootid oo telefoonka inta fiirisay 15 miss call markaad aragtid aad tiraadimaba ka qabanayo. maxaa dhacaya marka? guriga markaad tagtid dab baa kaaga shidnaanaya. haddaba maanta gabadhaa si fiican uga fiirso, haddii aad xallin kartaanna hadda isla xalliya. midda afraad waxay tahay waa gabar aanu bixiyey wareegto, meelna ma istaagto. waaguba hadduu bariyo cagaha cuncunaya. marka waagu u bariyo waa maray usii socoto guriga Xaliimo, waa maray usii socoto guriga Siciido, waa maray isu raaceen Aamina moolka. mar kastood wacdidba way maqan tahay, maba joogtaba. gabadhan mushkiladeedu marka xagee tahay? markaad bari isguursataan qofaad nolosha wada wadaagtaan oo guriga aad ugu imaanaysid oo haddii ay baxdo dantaylada intay soo bogato guri ku soo noqonaysa ayaad u baahan tahay. ma rabtid qof maanta dha wareegaya. marka gabadha tani 2 dabeecadood bay hadhow dib kala soo baxdaa. ama wareegii horood ku taqaanay bay ku socon. waana inta badan gabdhaha yiraahda gabadha saaxiibta iyo best friend-kayga ayaa aroosaysa. asbuuc walba best friend-keeda aroosta, iyadu best friend badnaa. mar walbana waxaad maqlaysaa aroos baan u socdaa. waayo kuwa kale oo iyada ku xiran baa jiidaya oo oranaya aroos baan aadaynaa nakeen iska soo baashaal, maxaa guriga kugu xiray. tan ayaa waxay keenaysaa marka dambe tartiib inaad adiga naftaadii aad u soo nacdid dhaqankan. waana dabeecadda labaad in ama guriga uu dumar intaa ka buuxo. dumar baaba intaa guriga dhex yaacaya. markaad timaadidba adiga waad xishoonaysaa qolkaaga jiifka inaad ka soo baxdid. gurigiiba gabdha kama dhammaadaan. 5 beri 4 beri oo asbuuca ka mid a gurigu waa camiran yahay. fiidkii markii la gaaro ayay dumarkii baxayaan iyadoo daalan oo tabcaana. markaas waxay ku leedahay hadda fiiri maxaan ku dhihi karaa saaxiibada iigu yimid albaabkan ka xirtaa. laakiin gabadhaasu hadday gabar karti la tahay way u sheegaysaa ninkaygaa jooga fadlan buuq iyo qaylo markuu ninkaygu uga maqan yahay ii imaaday oranaysaa. midda shanaad waxay tahay waa gabar aanu bixiyey ammaan jecel. waa inaad intaa ammaantid. maalintaadan ammaanteeda tirin ama aadan waxyaabaha ay ku fiican tahay sheegin, inta badanna ammaanteedu heer waxay gaartaa xataa waxaysan ahayn inaad ku ammaantid bay jeceshahay. waxaysan kuba sugnaynba lagaba yaabo waxaysan iyadu dabeecad u lahayn bay jeceshahay inaad ku tilmaantid. waana inta badan gabdhaha haddii xataa qof bini aadam oo kale oo caadiya ama gabar hadday tahay ama wiil hadduu yahay wanaagiisa haddaad sheegtid ka carooda. way ka xanaaqaysaa, ma aqbali karayso. markay maqasho qof kale adoo wanaagiisa sheegaya waxaa laga yaabaa inay ku tiraado wanaagayga maba sheegtide oo anigu sidan baan ku sugan. marmarka qaarkoodna xaqiiqatan naftayda waan soo arkay. waadna ashqaraaraysaa oo waxaad leedahay qofkani waxan maba ahane sideen ugu tilmaamaa. waayo qofka bini aadamka markaa gaar ahaan weliba aadan beenta u baran oo been inaad sheegtid aysan kugu badnayn oo caado ku ahayn qalbigaagu ma qaadan karayo.
marka dabeecaddan aad ku aragtid inay gabadhu kuu xanaaqaysa afka kuu taagaysa haddaadan ammaan iyo waxay aad inaad u tirisid ay mar walba kaaga baahan tahay intee in leeg baad qof bini aadama ammaanaysaa xaalada waxaa jira qaarkood ay kaa taalo xaqiiqo markaad xaas leedahay cunto ay kuu soo kariso ay cunto macaan jikada intay kuu gasho kuu keento iyo mid cusbo ka buuxdo aan macaanaynba qasab waa inaad ku tiraadi waad mahadsan tahay waa inaad tiraada xabiibti mahadsanid xataa haddayse cuntadaas kugu socon waxba ha ka sheegin ha caayin ha aflagaadayn dadaalka ay jikada kulaylka dul istaagtay oo ay kuu karisay ku mahadi intaasaan wax loo dhigaba lahayn midda lixaad waxay tahay waa gabar aan u bixiyey hadda ii samee hadda haddii aadan u samayninna inta badan waxaa raacsan qof kala ii samaynaya haddaadan adigu ii samayn karin meesha marka rag badan ay mushkiladu ka qabsataa waa meesha tan qof kala ii samaynaya markii ay ku tiraahdo baa laga yaabaa inaad tiraahdo oo yaa kuu samaynaya markaas waxaa laga yaabaa inaad ku tiraahdo wiil walaalkay ii samaynaya tana waxay keentaa marka inaad carootid oo adigina ay kugu adag tahay oodan samayn karaynin iyadina ay kugu cagajuglaynayso nin kaloo facaaya meeshii soo geliya wixii samaynaya tan oo adiga naf ahaantaada aad hanjabaad u arkaysid qalbigaagu marka ma qaadan karayo markaad aragtid gabar inay dhaqankan leedahay ama waxaan ay samaynayso oo ay adiga kugu cagajuglaynayso marka nin kale waa inuu meesha soo galo hawsha adigu qaban weyday uu qabto gabadha noocaasa kala hadal haddii ay yeeli weydo intee in leeg baad qalbigaagu qaadan karaya hanjabaada noocaasa ama qalbigaagu inuu xanuuno ama inaad walwaliyo walaac dareentid oo si u yara shakidid xataa gabadhu malaha nin kale la socota iyo wax la halmala tan qaska ay kugu keento baa waxaa dhacaysa in xataa shaqo nolol maalmeedkaaga aad qaban kari weydo naftaadii inaad isku aadi kari waayo maskaxdaadi waa kala dhantaalantahay iyadii baad ka fakaraysaa waxa ay ku leedahay ii samayna ma kartid ma samayn karaysid shaqaa laga yaaba inay kugu dhegan tahay hooyada ay cisbitaal ku jirtaa laga yaaba inaad kula jirtid duruuf wuxuun baa ku haysta kuu saamaxaynin inaad shaygaa u samaysid gabadha tani inta badan marka maskaxdaad ka waalan haddii xataa berri aad isguursataanna waa gabdhaha xataa hooyada adiga ku dhashay waxay ku leedahay waa inaad aniga iga hormarisa haddii kale cara imaanaysa midda toddobaad waxay tahay marar fara badanna waan tilmaamay laakiin meeshan waa inaan mar walba xusuusinteeda aan soo celceliyo xaalado waxaa jira dumarku ay maraan xaaladaha kan waa marka ay fasaxa ku jiraan marka gabadhu ay fasax gasho xataa culimadu waxay waalidiinta kula taliyaan gabdhihiina markay xaaladaha noocaasa ku jiraan xataa howlaha gurigood u diraysaan ka daaya waxaana dhacday in gabadhu iyadoo emotionally dareenkeedu uu si u jaban yahay oo nafteediiba caajis fara badan uu ka buuxo xaaladan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dumarkoo dhan u qoray ee ilaahay uu kuba abuuray ee abuurkooda ah ba waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood ay culays saaraan oo pressure saaraan tan waxay keentaa marka inay afka furato mararka qaarkood marka tanaan soo wadaa waxay tahay waa gabadha ku tiraada hadda idaa laakiin xaaladan kuma jirto gabadha tani gabadhani way ka gadisan tahay xaaladda dabiiciga ee dumarku ay ku sugan yihiin waxaa dhacda marmarka qaarkood inay ku tiraahdo hadal dhanba caawigama hayso haddaa weydiisoo tiraahday ma fasaxii baad ku jirtaa waxaa laga yaabaa inay si cad kuu tiraahdo kuma jiro waayo muddaa soo wada socoteen kalsooni ilaa xadkaas ayda ka dhaxaysa inaad weydiin kartid waxaana dhacaysa inaysan ku oranin fasaxii baan ku jiraa caadi kuu tiraahdo kuma jiro oo maxaa kaa qaldan may sibay iga tahay oo maxaa hallaysan gabadhan mararka qaarkoodna waxaa dhacda in caro qof kale uu ka soo caraysiiyey adiga ay kugula dul dhacdo waayo ma kala go'i karto maskixiyan ma kala go'i karto oo qofkani wax kuuma dhimin qof kalaa wax kuu dhimay way adag tahay inay kala saarto maadaama taasu marka ay jirto khilaafka iyo dhibaatadu xaggee ka imaanaysa waa gabdhaha inta badan marka la guursado ood guri wada joogtaan ood muddo isqabtaan iyadoo afka iska taagaysa un baad arki oo maxaa ka hadlaysan talow ma hooyadeed baad cayday ma aabaheed baad u gaftay ma qabiilkay ka soo jeedaad wax u dhintay lama yaqaan way iska caraysantaa way dudaysaa guriga way hagaajin wax walba way qaban waa suurtagal laakiin ilmihii intaa xunguruf hadal kulul qallayf cuntada markay kuu keenaysa wejigeedaad ka akhrisan karaysa waxaad leedahay cuntaba inaan ka cuno guriga ma rabo marka dabeecadatan markaad isla socotaan haddaad ku aragtid gabar ku oranaysa idaa macna daro faraha ka qaad gabadha intaad wada socotaan markaad dabeecadatan ku aragtid isku day inaad la xalisid isku day bal inaad mushkiladatan xal u keentid waayo waxaad ogaataa wiil kastoo gabadhaad la socotaa waa walaasha markaad qalad ku aragtid ama wuxuun xoogaa ay ku liidato isku day inaad kabtid isku day inaad saxdid isku day inaad wax u sheegtid isku day inaad baraarujisid haddii laakiin ay qaadan kari weydo marka adigu naftaada wixii dantu kugu jirta samee marka dantu waxay kugu jirtaa waayo ninka ragga ahi haddii gurigu litaskunuu ilayha ay ka baxdo meesha xasiloonida iyo deganaantaasu meesha markay ka baxdo waxaad ogaataa mawadatan wa raxma ma jirayso haddii deganaan guriga laga waayo kalgacalkii meesha waa ka baxayaa naxariistina meesha way ka baxaysaa
maxaa keenaya waayo adoo shaqada joogtid baad gurigaagii maskaxdaadii kala bar xaafadaad uga soo tagtay guriga shaqada markaad joogtid maskaxdaadii waa maqantay maanta waxaad is weydiinaysaa oo gabadha maxaad u dhintay oo talow maxaa ka qaldan ogowna gurigaagu markuu baaba noocaas noqdo dab kaaga shidan yahay way adag tahay faca inaad la tartantid meeshay soo taabteen aad soo taabatid marka laakiin gabar dhab ah oo kartile aad qabtid caqligeedu ku filan yahay oo caqli badan waaye arag ah ilbax ah markaad qabtid noloshaada xasilooni badan baad dareemaysaa noloshaada deganaan fara badan baad dareemaysaa noloshaada waxaad dareemaysaa in wixii kaa dhimanaa oo dhanba dunida ilaahay ku siiya xataa haddii risqigu uu ciriiri kugu yahay haddii guri weyn oo ballaaran aad degan tahay hase yeeshee qofka guriga aad la wadaagtaa uu yahay qof aydan isdabci fahmaynin ama dabeecad aad u jeedid inaadan qaadanaynin uu kugu qasbayo waxaad ogaataa gurigaasu ciriiri buu kugu noqonayaa haddii gurigaasu uu yahay guri aad ciriiri idinku ah hase yeeshee labadiina qalbi ay isu dhow yihiin oo isjeceshihiin ismaqashaan is adeecdaan sheekadu isugu kiinbaxdo gurigiina wuxuu idin noqonayaa guri weyn oo qasri ah meesha marka guriga waasaca qofku uu ka dareemaa ma ahan waasaca guriga labadiisa darbi ee la kala fogeeyey ee wuxuu ka dareemaa waa halkan qalbiga qalbiyadan isu dhow baa waxay keenaan gurigu inuu waasac noqdo haddaba adigu maanta intaad gabadha la socotid tan xalli haddii kale berri markaad guri gashid u diyaar garow inay dabeecadda tani sii socon doonto in intee la-eg baadna usii dulqaadan karaysaa maanta intaadan guursan gabadha gabarnimadeeda aadan dhaafin berrina aadan furin oo cidlo uga dhaqaaqin miskiintaa maanta inaad iska dhaaftid baa kuu dhaanta waayo rag fara badani waxay is yidhahdaan way qurux badan tahay jirkeedaa qurxoon intay ka qurxoon tahay ka faa'iidayso guri buu la galaa wuu og yahay berri inuu ka tegi doono dabeecaddan inuusan qaadanayna wuu og yahay kharash buu geli siduu gabarnimada uga qaada oo keliya wax yar kabacdi markii la joogo oo ay wiilkii gabadhii isla degan yihiin buu wuxuu bilaabayaa qaylo wuxuu bilaabayaa cay wuxuu bilaabayaa aflagaado dhaqan waayo cara fara badan oo ka guuxayso asaga ka buuxdaa jirta haddaba halkaa fog baa ha gaarin hadda maanta doorasho ayaad leedahay maskaxdaada deganaanshaheeda wax loo dhigaa dunida ma jiro haddii maskaxda tan dhaawac uu kaa soo gaaro oo ad inta ka bahdilan tahay waxaad ogaataa maalin baa jirta aad isnacaysid wax lama filaanana lagaba yaabo inay kaa dhacan haddaba meeshaa fog ha gaarin maskaxdaada deganaanteeda qalbigaaga deganaantiisa noloshaada maalmo qoraad dunidan joogtaa qabrigii yaraa baa lagugu soo ridaya intaa yare aad joogtid dunida waxaad ku dadaashaa in aad raaxo ku noolaatid in allaaliya intii adiga awooddaadu ay dhan tahay waayo in waxaa jirta heero raaxo inkastoo dunidu aysan raaxo dhammaystiran ahayn laakiin in raaxo qofka biniaadamka uu ku noolaan karo way jirtaa haddaba si noloshaada ay hagaagto xasilooni fara badan aad u dareentid maanta ka fiirso dhammaantiin waana walaalkiina ayubo idin leh intaynu dabcan video kale dib ugu kulmayno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh